qofka aan quraanka xafidin qofka aan quraankan aan akhriyin qofka aan quraankan micnihiisa aan u fiirfiirsan nabigu waxa uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib ninka qalbigiisa joofkiisa uu ku jirin wax quraan uu ku jirin nabigu waxa uu yiri wuxuu la mid yahay sidii guri kharaaba maxaad u malay bisad baa gasha jiir baa gasha waxa gala maarta jin baa gala baa gasha gudaafad oo dhan ayaa ku gurmaysa qalbigiisu waa sida baa ku jirta xam baa ku jirta xasad baa ku jira jib baa ku jira waswaas baa ku jira qalaq baa ku jira nolol cidhiidhiya ayaa ku jirta waa qalbi aan quraan lagu hayn waa shuf aan quraanka ilaahay waxba aan hayn weeyaan kuwaasi ikhwaani fillah kuwa quraanka xafidsan hum a'la manzila iyaka inoogu manzila sareeya iyaka inoogu fiican ilaahay baa doortay nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin ilaahay kitabkan dad ku qaada dad ku sareysiya dad ku noolaysiya oo kor ugu qaada buu yiri nabigu alayhi salatu wassalam wa yad'u bihi akharin qarna ilaahay waa ku tuura qiimo looma yeelo sharaf looma yeelo meel fiican ka dhashaba sidoo doona han noqdaba hadduna quraanka uuna ku amal faleyn uun akhriyay ilaahay qiimo uma yeelo sharaf uma yeelo akhrajahu muslim dadka kuwa quraanka xafiday iyaka ugu ajar badan iyaka ugu thawaab badan nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam alladhi yaqra'u alqur'ana wa huwa maahirun bihi ma'a as-safarati al-kiram al-barara كقرآن كأخري والنبي حريف كأبو النبي صلى الله عليه وسلم وحول أجري هاي ملائكة اللي هذا السفرة الكرام البررة ملائكة وناكسن إلى هاي درسة السفيرة دي ساعة هو سول أجري هاي الله أكبر dadkii wuu dhaafay muxuu ku dhaafay quraanka akhrintiisii dadkii wuu dhaafay muxuu ku dhaafay quraanka ku amal falkiisii buu ku dhaafay Allahu akbar maxaa ka fiican illa la fariisto oo wax laga barto maxaa ka fiican maxaa ka qurux badan markaad aragtid masjidka iyaga oo ku jira oo xalaqa u fadhiya oo quraankii wal akhriya nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wa sallam majtama'a qawmun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم نبي وحا يلي قار بيوت قريها إلهي كمدة كما كل ما بالنبي قولي عليه الصلاة والسلام إياكو أو أخري هذا الكي إلهي oo isku diraasaynaya isku sheegaya isbaraya xalaqad quraanaya oo sameynaya illa haddad aratid nabigu waxa uu nazalat alayhim as-sakina hasiloni ba ku soo degays way hasilooyihiin way khushuucsayihiin hasiloni ba ku soo degtay wa ghashiyatuhum ar-rahma naxariis ba daboolaysa inakum ma ba arkayno laakiin naxariis ilaahay agtiisa ayaa daboolaysa wa haffatuhum al-malaa'ika malaa'ik ba ku wareegaysan oo ag joogta oo dhageysanaysa oo salaamaysa وذكرهم الله في من عنده إلهي با حسيا إلهي با ملائكتيسا ugu faanaya bal adoomadayda u fiirsada quraanka bay akhriyayaan way xusayaan kitaabkayga ay diraasaynayaan buu ilaahay leeyahay maxaa ka fiican in la fariisto xalaqaadka in wax laga barto ikhwaani fillah maxaa ka fiican maxaad u marin hadaba ka xaafidka quraanka ilaahay dusha ka qaybay حافظي قرآن كابرتي معنيه سي برتي تلاودي سي برتي حروفتي سي حدودي سي أردن بالبرك محاد أمالين قفك إلهي كرامي قفك إلهي فضل قوين انت لك أسيي وكو عمل فريواية محاد أمالين سقو أو قرآن كي حفظسن هدو الزنيس سقو أو قرآن كي حفظسن dadka haduu caayayo dadka ka amaan laayihiin maxaad u malayn ka quraanka xafidsan haduu khaa'in noqdo oo dadka khiyaanaya maxaad u malayn haduu tuug noqdo mayna falxumayn muna ilaahay u xanaaqayn kitaabkiisa buu xafidsan yahay markaasuna ku amal falayn miyay labadaasi kulmaan xumaan iyo wanaagu miyay kulmaan wuxuu akhriyaya وحفظ سيها قرآنك الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كالزانية إيناك الزانية إلهي قراع أبو إلهي ليه ونزني السنية وحو حفظ سيها
وأخري آيات القرآن كالسارق والسارقة وحبو حضيا وحو حفظ سيهي آيات القرآن كألا لعنة الله على الظالمين نعد الشيء إلهي وحا إسارنتهي وإلهي النعضليا كوا الظالمين تأي أمد قردريستا آيات كقرآن كأيو حفظ سيهي أمدنا وقردريسانيا أثر وحا كيمد رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه بدنا انت قرآن كأخريسا وقرآن كنا نعضليه محا كان كما عمل فليه ألا لعنة الله على الظالمين بأخريا والظالم سجي نعدش إلى هاي الظالمين هكون نعضو سجنا والظالم ومدبوا قدر السنية إخواني في الله قفك حافظ القرآن كوحل الرضائن النقد قدوة مثال تصالوا ونكسر وأرضك الصعود إنه النقد مركو أمسيهي مركو هضليو مركو صعدو مركو وحيغيو مركو كفتميو مركو أسبوع سمينيو انت أردن وحال الربا إنه النقد تصالوا ونكسر محايا لو حكو ديانا يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد وحو أها قرآنا يدب على الأرض قرآن الرضا كالصعد أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي لويدي عائشة اللي يلو أخلاق دي النبي ما ورن نبي أخلاق دي يدبي عديسي وحيتري كان خلقه القرآن نبي الدبي عديس القرآن أيهي نبي محمد وحو أها قرآن ورلك كالصعد أيها صلى الله عليه وسلم مركاد أردت النبي إيمان باكو بيريا مركاد نبي كسلد الإيمان باكو بيريا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحو أها أخلاق صعد أيها النبي عليه الصلاة والسلام إذن وحل